Assalaamu calaykum. Maalmahan dambe waxaad u soo xoogeysanayay dad Soomaali ah oo qaatay diinta Kiristanka inkasta oo ay faraku-tiris yihiin, haddana faafinaya oo baraha bulshada la soo fadhiya kuma eedeynayo fikradda ay qaateen iyo inay diintoodii bedeleen oo qofku wixii uu naftiisa ku samaynayo isaga ayaa xor u ah ee ma aha mas'uuliyad Ilaahay subxaanahu wa tacaala ina saaray se waxaynu gaadhsiinaynaa dadkaas iyo dadka la dhacsanba fariinta Ilaahay subxaanahu wa tacaala inoogu dhiibay ee ah inay qalad fahmeen oo ay jid marooro raaceen markana fariinta ku siimayno barnaamij YouTube ka baxay oo dhowr daqiiqo ah ama hadal mar la yiri ee waxaynu ku siinaynaa daraasad cilmi baadhis qancin dhammaystiran aqoon baadhis dhan walba ka idibilan oo dhiraandhirin isbarbardhig baadhitaan iyo dadaal badan lagu bixiyey loogana soo shaqeeyay qaab la ceeb iyo cay tiray qaab la qodax iyo qobtol tiray qaab muc iyo miid la isugu keenay qaab ciddii akhrida aanay ku marganayn ee ay si dhul mar la dhagaha ugu raaricinayso daraasaddanna magaceeda waxaa la yidhaahdaa baybalka maxaa ka run ah waa buug uu qoray nin aanan garanayn oo la yidhaahdo magaciisa Shucayb Xaaji Ciise waana buug ka kooban 370 bog waxaana daabacday madbacadda Hill Press dalkana waa laga helayaa oo aniga lafteedu way qoran online ayaan ka gatay haddaba buuggiisaas hordhaca waxa uu ka odhanayaa Shucayb Xaaji Ciise sanadkii 2012 waxaan ahaa fasalka labaad ee iskuul caafimaad oo ah mid ka mid ah jaamacadaha waaweyn ee dalka Itoobiya xilligaas waxay la soo diristay dhibaato xagga dhegaha ah dhakhtar kasta oo aan u tago wuxuu noqday mid ka dayriyo xaaladda dhegahayga dhibaatadaas dhiguhuna waxay culays badan iga saartay waxbarashadayda aniguna waxaan noqday mid murugaysan aniga oo xaaladaas ku sugan ayaa waxaa habeen ii yimi yar saaxiibkaya oo Kristan ah oo aanu isku fasalahayn oo dareensanaa murugada ay hayse iyo sida niyadu iga jabsan tahay markaasuu ii sheegay in Rabbigiis Ciise ay caawin karo oo ii daweyn karo kaliya aan u baahanahayna inaan aamino oo aan kaniisadda soo booqdo si aan diintiisa ugu biiro inkastoo aan ka cudur daartay inaan kaniisadda u raaco si aan diintiisa ugu biiro haddana arrinkaasi waxay igu dhalisay inaan baaritaan ku sameeyo caqiidooyinka iyo taariikhda diinta Kiristanka inta aan ogahay buuggan waa kii ugu horreeyay ee af Soomaali ku qoran ee noociisa oo kaleeto ah buuggan wuxuu soo bandhigayaa baaritaan cilmiyeysan iskuna dheelitiran oo igu qaatay muddo ka badan 6 sano oo aan diinta Kiristanka ku sameeyay wadaadada muslimiinta ee Soomaalida wax badan kama qoraan diinta Kiristaanka aan ka ahayn inay sheegaan arrimaha sida in kitaabka Baybalka wax laga bedelay balse marnaba ma ay sheegaan sida wax looga bedelay sidoo kale waxay sheegaan in kitaabka Baybalka iskhilaaf ku jiraan balse marnaba ma sheegaan hal tusaale oo ina tusinaya iskhilaafkaas iyo arrimo kale buuggan waxaa loo qoray si uu baahidaas jirto u daboolo si doodaha buuggan soo bandhigayo ay u noqdaan kuwo xooggan waxaanaad u isticmaalay aayadaha kitaabka Baybalka iyo qoraallo ay qoreen dad asalkoodu Kristan yahay buuggan wuxuu faa'iido weyn u yeelan doonaa dhalinta Soomaaliyeed kuwaasoo ku nool dalal badan oo Kristan ah dhalintaas waxaa laga yaabaa inaysan aqoon durugsan u lahayn diinta Kiristaanka aad iyo aad baanay wadaadada Kiristaanka ugu fududahay inay waxyaabo qaldan ka dhaadhiciyaan dhalintaas saameyntaas waxaa laga arki karaa Soomaalida ku nool xeryaha qaxoontiga ee dalalka Kenya iyo Itoobiya xeryahaas waxaa ka howlgala hay'ado badan oo faafiya diinta Kiristanka kuwaasoo caawimaad u fidiya dadka Soomaaliyeed ee xeryaha ku tabaalaysan si ay ugu fududaato inay ka dhaadhiciyaan diinta Kiristaanka Soomaaliduna waxay ku mahmahdaa af wax cunay xishood badana dadkaas markii caawimaad loo fidiyo waxay ka soo dabcaan diidmadii ay u qabeen diinta Kiristaanka taasi waxay fududaysay in qaarkood waxyaabo badan oo caqiidooyinka diinta Kiristanka laga dhaadhiciyo ugu dambayntana diintaas ay ku biiraanba haddaba waxaan rajaynayaa in Soomaalida uu buuggani ka qabtiro waxyaabo badan oo diinta Kiristaanka ku saabsan kuwaasoo xataa dadka Kiristanka laftoodu aanay aqoonin ama aan loo sheegin oo laga qariyo xitaa haddii loo sheegana si qaldan loogu fasiro waa hordhaca buugga daraasadda ee ah Baybalka maxaa ka run ah waxaana qoray Shucayb Xaaji Ciise runtii ka aadan ahaan intii aan buugaag Soomaaliya akhriyay maanan arag buug Soomaaliya oo sidan oo dhan looga soo shaqeeyay oo qaabkan dhan walba looga soo bilay mana aanan arag daraasad af Soomaali ah oo sida uu ninkaasi u soo diyaariyay loo soo diyaariyay mana aanan arag buug dhanka baaritaanka kaga habboon ilaa hadda markaan gacanta ku dhigaynay waan akhriyay waliba si gaar ah waxaan uga faa'iidaystay waxyaabo badan oo qaab qoraalka iyo daraasadaha marka aan samaynayo iga anfacay Shucayb Xaaji Ciise waxa uu buuggaas u diyaariyay qaabkii ugu habboonaa waxa uu mas'alo walba kuugu dhigdhigayaa sida ugu habboon bandhig iyo gunaanadna uu u samaynayaa hadhowna adiga iyo garaadkaaga ayuu isu kiindaynayaa haddii aad akhrido oo aad fahantana baadari Kristan faafinaya oo dambe dhiguma dhigaysid oo war la qabaa xiiso ma laha
buuggan baybalka maxaa ka run ah Shucayb Xaaji Ciise waa buugaagta istaahila in dowladaha iyo qolyaha yidhaahda samafalayaal ayaanu nahay ee keliya masaajidada u dhisaa inay maalgeliyaan oo guri kasta oo Soomaaliyeedba laga helo qof kasta oo wax aqoon ah oo akhriska ku dhex jira oo Soomaaliyeedna uu akhriyo manaha buugan xayeysiinayo oo aan suuqgeyn u samaynayo laakiin runtii waa buug istaahila ammaan iyo bogaadin haddii aan garanayo qoraagaasi si toos ah ayaan ugu hambalyeyn lahaa haddii ay jirto cid garanaysana ha iga gaadhsiiso hambalyadaas culimadeenu sida badanka diinteenna ayuunbay culayska iyo xoogga saaraan oo dadaal badan ay ku bixiyaan kiristankana keliya waxay ka yaqaanaan inta ay diinteennu ka tilmaantay uun aqoon-yahan kale oo badana inooga faalloodana ma aragno sida badanka ah taasi waxay keensatay inuu buuggani miisaan iyo maqaam gaara ku yeesho agteenna haddaba si aad u fahanto sababtaan sidan oo dhan buuggaas ugu ammaanayo aynu isla egno weydiimaha uu keenayo ee inta uu baadho uu xaqiiqadooda abbaarayo ee sida ugu idibilan uu uga jawaabayo waxaa ka mid ah kiristanku ma kaydiyaan hadalladii ilaahay ku hadlay waraaqaha wadaadadu ma noqon karaan hadalkii ilaahay wadaadada qaar oo sheega inay fikradooda ku hadleen wadaadada qaar oo ka hadlay arrimo shakhsiyadeed waxaanu ka sheekaynay dhammaan wadaadadii kiristanka wuu sii wadaa su'aalaha baybalka wax ma lagu daray kitaabka baybalka ma ku jira iskhilaaf qaar ka mid ah iskhilaafyada ku jira kitaabka baybalka ilaahnimo ma sheegtay ciise mise ma uu sheegan kitaabka baybalka dad la yaqaano oo markhaatiyo ahi ma qoreen kitaabka axdiga cusubi sidee ayuu ku yimi qur-aanka ma laga soo minguuriyey kitaabka baybalka dadku ma keeni karaan qur-aanka oo kale muslimiintu ma isku khilaafeen qur-aanka ilaahay ma keliba mise waa saddex kitaabka baybalku ma taageeraa caqiidada saddex midnimada mise kelinimada ilaahay iyo tawxiidka ayuu taageeraa waa caqiidada Trinity ciise masiix iyo xertiisu ma aaminsanaayeen caqiidada saddex midnimada ee Trinity oo saddex ilaah yacni ma caabudi jireen mise ilaah keliya ayay caabudi jireen caqiidada saddex midnimada ma bixisaa fahamka ugu fiican ee ilaahay iskhilaafida caqiidada saddex midnimada waa kuma ciise masiix laftiisu ciise ma wiilkii ilaahay baa mise waa addoonkii ilaahay sidee waayadii hore loo fahmi jiray in qofka loogu yeedho wiilka ilaahay ilaahay ma dhalay ciise masiix baybalka iyo wiilnimada lagu sheego ciise masiix ciise ma yahay kelimadii ilaahay ciise ma yahay ilaah ciise ma sheegtay ilaahnimo ciise rabbi ama ilaah ma loogu yeedhay caddaymaha ka hor imanayeen ciise aan weligii ilaah sheegan ciise masiix oo si cad ilaahnimo u diidaya ciise masiix ma dhintay mise ma u dhintay dembiyada dadka dartood ciise masiix ma aaminsanaa in dhimashada isaga lagu sheego ay dadka badbaadin doonto xertii ciise masiix ma aaminsanaa in dhimashada lagu sheego ciise masiix siday ku bilaabantay caqiidada kafaara gudka ee la xidhiidha dhimashada lagu sheego ciise masiix ciise ma aha nebi waa maxay nebi ciise masiix ma aha nebi caddaymahaayna tusayeen ciise masiix nebi ahaa ciise masiix iyo nebi maxamed ruuxa uu ciise masiix ballan qaaday nebiga ciise masiix uu sii sheegay nebi maxamed sallallahu calayhi wasallam ma buuxiyey shuruudaha nebiga uu ciise masiix sii sheegay weydiimahaas iyo qaar kale oo badan oo bogagga 370 ku dhow lagu faaqidayo ayuu qodob u keenayaa qoraaga buuggaas ee Shucayb Xaaji Ciise runtii waa buug u qalma oo in badan waliba u qalmeen si wacan loo daraaseeyo wassalaamu calaykum